tobanka dal ee laga yaabo inay ka badbaadaan dagaalka saddexaad ee dunida. liiska tobankan wadan waxay isugu xigaan sidan. lambarka 10aad waa Switzerland. dhaqanka siyaasadeed ee dhexdhexaadnimada, buuraha waaweyn ee ku hareeraysan iyo ciidamadeeda xoogga u hubaysan ayaa muujinaya in Switzerland ay ka badbaadayso qallaasaha ay wajihi karaan qaaradda Yurub. haddii haddaba uu dagaal qarxo dalkan yar, waxaa gaashaan u noqon kara buuraha ku teedsan oo dadkeeda ay gabaad ka geli karaan haddii markaasi hubka culus la isku adeegsado. lambarka 9aad waa Tuvalu. waa jasiirad ku taalla gunta fog ee badweynta Pacifiga. Tuvalu waxay ku badbaadaysaa siyaasadeeda oo dabacsan iyo qarar ahaan halka ay ku taallo oo aad u fog. dadkeeda yar iyo kheyraad badan oo aysan lahayn ayaa noqon doonin sabab ay quwadaha waaweyn ku weeraraan jasiiradaasi yar. 8. New Zealand. waxay ka mid tahay dhulka ayda ku yaala ee horumaray mujtamac ahaan dunida. New Zealand waxay ku dhaqantaa hanaan dimuqraadi oo degan, kumana lug laha colaadaha dunida ka jira. si la mid ah Switzerland, waxay New Zealand leedahay buuro silsilada ah oo dadkeeda gabaad ay ka geli karaan haddii ay timaado khatarta ah in la soo weeraro. 7. Bhutan. Bhutan meesha ay dunida kaga taalo oo naadir ah waxay ka dhigaysaa halka ugu gabaadka wanaagsan haddii uu dhaco dagaalka saddexaad ee adduunka. buuraha Himalaya ee ku hareeraysan Bhutan waxay ka mid noqonaysaa meelaha ugu dhufayska wanaagsan. ilaa markii ay ku soo birtay jimcida qurmaha ka dhaxaysa 1971 Bhutan waxay ku taagan tahay siyaasad dhexdhexaadnimo iyadoo wax xiriir diblomaasi aysan lahayn dowladda Mareykanka. lambarka 6aad Chile. waxay ka mid tahay wadamada ugu xasiloon uguna barwaaqaysan koonfurta Ameerika. heerka horumarka nolosha aadmiga waa mid ka sarreeya wadamada kale ee Latin America. haddii haddaba uu dagaalka saddexaad qarxo, waxaa gidaar u ah buuraha dhaadheer ee Andes ee ku teedsan xaduudaheeda. lambarka 5aad Iceland. markii dib loo eegay xaaladda waddankani uu aad u nabdoon, waxa uu lambarka 1aad ka galay meelaha ugu xasiloon dunida sanadkii 2015. sidoo kale Iceland wax hadduu dhuleed ah lama wadaagto waddan kale, waxayna leedahay buuro ay kaga dhuuman karto colaadaha mustaqbalka soo socda. lambarka 4aad Denmark. waa suurtagal haddii dagaalka saddexaad colaadi ay ku fido Yurub ay saameyn ku yeelato Denmark maadaama ay ku lug leedahay gaashaanbuurta NATO, laakiin waxay qatartaasi ay kaga badbaadi kartaa jasiiradda Greenland oo maamul ahaan ay boqortooyada Danishka hoos tagto, taasoo sida Iceland ay buuro ku teedsan yihiin iyadoo masaafo ahaana ku taala meel aad u fog. lambarka 3aad Malta. waa jasiirad yar oo ku dhex taala badda Mediterranean-ka. taariikhda guudna waxay dhigaysaa in boqortooyooyinkii hore ee dunida soo maamuli jiray ay ku guuldareysteen inay qabsadaan Malta. taasi waxay macnaheedu yahay in duulaan lagu qaado jasiiraddaasi uu qarash aad u badani ku bixi karo. dhulka ay ku fadhiso jasiiraddani aad u yar ayaa waxay keenaysaa in wax gantaal ah aan lagu khasaarin. lambarka 2aad Ireland. dalkani waxa uu ka mid yahay wadamada horumaray, wax xiriir ah lama laha dalalka ishardiyi doona haddii uu qarxo dagaalka saddexaad ee adduunka. Ireland sidoo kale xubin kama aha wadamada ku boobay NATO. taariikh ahaan waxay leedahay military dhexdhexaad ah. sida uu dhigayo sharciga Irishka, Ireland haddii loo baahdo inay ku lug yeelato colaad dibadda ah, waxay taasi u baahan tahay inay ansixiyaan baarlamankeeda iyo golaha ammaanka ee qaramada midoobay. ugu dambeynna lambarka 1aad waxaa ku jira Fiji. waa jasiirad fog oo ku dhex taala badda Pacifiga. waxay aad uga fog tahay in lagu soo duulo. dadkeedu aad bay u yar yihiin, waxayna dhexdhexaad ay ka tahay arrimaha dibadda
iyadoo aysan lahayn kheyraad keeni kara in la banaysto duulaankeeda.